qalinku wuxuu tusmeeyaa xasuus tagtay, waxa uuna soo dhoweeyaa timaaddo aan la gaarin, waxa uuna nolosha la falgeliyaa taaganta lagu dulnool yahay. fakarku wuxuu waraabiyaa dareemada dhintay ee qofka, waxa uuna ballaariyaa garaadkiisa iyo adduun araggiisa falsafadeed. ruuxu waxa uu ka fakari karaa wax soo socda oo naftiisa gubaya, marna waxa uu ka fakaraa xasuuso tagay raadgoobkooda, mar waxa uu ka fakaraa sheekooyin uu horay u maqlay kala saarkooda iyo waxa ka jiri kara dhacdooyinkii looga warrami jiray run ahaanshiyahooda. mar kalena waxa uu ka fakaraa kolkii uu jiifay riyo soo martay oo madmadow kaga dahaarmay, iyaduuna ku mashquulaa soo garashadeeda. qofka fakarayaahi waxa uu la kulmaa howlo fara badan, isagoo isaga tallaaba qaarada kala fogfog iyo dhulal midabyo kala duwan leh. waxa uu safarkiisa kula kulmaa dadyow kala jaad ah, isagoo weli ku sugan halkii uu ku fakarayay. waxa uuna niyad helaa kolka uu akhriyo ama dhegaysto tusmada ku qoran dhambaalka koowaad ee suuradda Muxamed. waa suuradda eebba ku sharfay suubanihiisa, magaciisana ku taariikheeyey. waa tusmada odhanaysa dhulka mara oo u fiirsada amuurta ku duugan, cibrada dhex taalana la shawra, warcelintiisana la gaar noqda. waxaan mar kasta jeclahay inaan qoro ama kaydiyo waxa aan dareemayo. maxaan dareemayaa caawa? waxaa si kadiis ah igu soo degay cawooyinkaagii, waxaana ii hor yaalla amuur aanan horay u filanayn. waxaa gacanta la ii saaray laabtaadii culnayd, kashaadii cudoonayd iyo hadalkaagii aan la qawiga lahayn. su'aalahaagii iyo jawaabahaagii kolka la isku laro taxadarku dahaarayay, weerahaagii qunyar socodnimadu seetaynaysay ee intii aan u soo joogay aad dhadigaba kaga gooni ahayd. waa tii in cabdille xasan yidhi, wax fudud oo aan faras ahayn baa nacaye. waxaan dareemayaa culayskaagii iyo miisaankaagii la isku dheelitiray. caawa ka hor sidaan kuuma daawan, kuumana dhexgelin oo kuma talagelin inaan kaa fakaro, balse moogaan waxaan dareemayaa culays la mid ah kii uu dareemay khaatimkii ambiyada kolkii suuradda Iqra ay garbihiisa ku soo degtay. dharaartii waxyiga boqorka boqorradana loo furfuray. ma dhici jirin inaan dib u fiiriyo dawgii aan soo maray iyo dadkii aan ku kulannay, balse ragannimadu waxay faraysaa inaan ka garaabo inaan ku soo gocday. kolkii aad maskaxdayda ka daahirtay, risaaladaadana la ii dhiibay, waxaa ii baxaysay heestii Maxamed Mooge Liibaan ee odhanaysay kadiga jirtaanday dhaxantooyga haysa jelaydeen hargeyso. kadiga jirtaanday dhaxantooyga haysa jelaydeen hargeyso. waa hees lagu guwaabinayay dadkii ku dhaqnaa waqooyiga Soomaaliya. wuxuu ina Mooge ku dhiirigelinayaa inay sumca afeeyaan, dirirna u istaagaan oo maadhiinka kala hor yimaadaan xukunkii milatariga. heestaas dhiilada xambaarsan iyo xasuustaada maxaa kulmin kara? adaan kuu daayay jawaabtee, soo caawa kama tanaasulin fikrad aan aaminsanaa muddo dheer iyo aragti aan diidanaa xaqiiqa ahaanshaheeda. soo si dhab ah uguma garaabin caalimkii reer Giriig Aflaatoon oo 2000 oo sano ka hor yidhi, kashu waxa ay doonayso ma hor istaagi karaan dabeecadda iyo cadiifadda oo la isku laray dirkaba. mugga soo gar uma lihi inaan si dhab ah ugu luuqeeyo maansadii gabyaagii reer Britain William Shakespeare oo gabaldhiciya waabaryaba naftu ima amrayso inaan ku celceliyo tuducyadii odhanayay, waayihii galbaday oo sidee tihiin, hirarkii baddow weli ma ruuxantaan, Scotlandey weli ma dhaqantaha. xasuustaadu waxay sida qardhaastii ii laqsiinaysaa mabaadi'iyo shisheeye iyo kuwa sokeeye, oo haddaan been la isku sheegin maxaa maskaxdayda dhambalay oo ka bayriyey toobiye ay horay ugu joogtay. ma waxaan rumaystaa oo aan meel shishe ku guntaa heestii Axmed Salebaan Bidde.
ma ogi waaga waxaad ku dhaqan tahay mana ka faalloon karo dareemadaada aasan iyo dulucda jiraalkaaga ma hilaadin karo halka aad geediga ku wado iyo ruumanka sahanku kuu jiro mana joogo xerye guuladii aan kugu sugi jiray balse waxaan qirayaa in dareenkaaga shacuureed ay dabayluhu sidaan waxaana kugu warcelinayaa in ay soo gaareen laabtaydana ay ku tiixeen sida warkaagu ii soo gaaray ayaan u dareemay in awoodahaagu ay gaarsiisan yihiin inaad foorayaasha adeegsato fariimahaagana aad dhex marsato balse alla igu ogo waa aqoon iga dahaarnayd in nebiyullaahi salebaan boqorkii ina daa'uud kadib uu jiro ruux bini'aadam ah oo mulkiyaddaas loo dhiibay gacantiisana lagu hubsaday balse waan kugu ogaa awood xambaari karta mas-uuliyadda intaas le'eg ammaano allah dhegaystayaal faalladanna waxaa falkiyey fiisofarka caanka ah ee nuur daahir geelle